السلام عليكم. كنت معنا وناسين ملك سادونية كجوجتان. موضوعا كوبان waxaan ku hadli doonaa 5 hab ama 5 qodob oo loo xaliyo xaaladda la yaqaano chronic fatigue ama daalka marka qofku waqti dheer la soo noolaa. taasoo ka dhigan marka qofku inuu aad ugu yar yahay awoodda ama energy-ga taasoo marka u sahlayso qofka ama u saamaxaysa inuu ku qabsado hawl ama shaqo marka isagu muhiim u ah noloshiisa. hase yeeshee haddii energy-giisu ama tamartiisu hoos u dhacdo waxaa dhici karta inay iska hortaagto waxaa loo yaqaano qofkaasi hawl maalmeedkiisa taas oo markaa dib u dhac weyn ku ah qofka noloshiisa isoo kale mustaqbalkiisa. si kastaba ha ahaatee intayna barnaamijka bilaabin waxaa si xushmad kaaga codsanayaa inaad noo saarto akoonka follow sidoo kale linkiga sare ee profilka saaran youtube-kana isagana inaad noo saarto subscribe. shanta qodob waxaa kale yihiin qofku inuu aad ugu dadaalo isticmaalka waxa loo yaqaano quraacda taasoo marka qofku isticmaalo ma uu cuno subax hore waxaan qofka helayaa awood ama tamar. sida sheegan khubarada caafimaadkuna waxaa lasoo jeedinayaa qofku inuu aad ugu dadaalo isticmaalka cuntada borotiinku ku badan yahay halkii markaa cuni lahaa cuntada markaa karbohaydraytka ee markaa sokortu ay ku badan tahay. qodobka labaad wuxuu yahay qofku inuu sameeyo exercise markaa jimicsi gaar ahaan haddii qofku aad ugu yar tahay awooddiisu waxaa dhici karta markaa inay sare u qaado awooddiisa taasoo marka qofku saamaxaysa in maskaxdiisu ay si wanaagsan u shaqeyso sidoo kalena sare loo qaado awoodda ama sidoo kale tamarta qofka. qodobka saddexaad wuxuu yahay in qofku yareeyo waxa loo yaqaano ururka ama sidoo kale walbahaarka taasna waxay keenaysaa in la yareeyo hormoonka loo yaqaano cortisol taasoo markaa sare u qaadi kara ururka ama sidoo kale walbahaarka taasna waxay keeni kartaa qofku inuu dareemo waxa loo yaqaano taasna markaa waxay keenaysaa qofku inuu dareemo awood darro ama sidoo kale tamar darro saayida. qodobka afraad ee lasoo jeediyey wuxuu yahay inuu qofku ku dadaalo isticmaalka cabitaanka biyaha balse uu yareeyo isticmaalka kaafiinka balse qofku waxaa loo soo jeedinaya inuu cabbi karo shaaha markaa ka yimaada dhirta taasoo markaa isaguna faa'iido weyn qofka. ugu dambeyntii waxaa qofku laga talinayaa inuu seexdo hurdo ku filan taasna waxay keenaysaa inuu markaa hoos u dhaco daalka markaa qofku uu dareemayay balse haddii hurdada qofka ka yartahay waxaa dhici karta inuu dareemo daal saayida. tani kuwa dambe uu ku mahadsan daawashadiina nabadgelyo. Follow me in social media.